kusoo dhawaada mid kale oo ka mid ah barnaamijyada aanu u bixinay xusuus reeb ama xasuus reeb oo aanu kaga warano dhacdooyinkii taariikheed ee soo maray arlada geeska Afrika 60kii 50kii ama 40kii sano ee ugu dambeeyay waxa hadii jeer caado noo ah in aanu barnaamijkan ugu yeedhno hadii ay noo suura gasho dad aanu u aragno in ay goobjoog ka ahaayeen ama wax ka og yihiin ama wax ka barteen taariikhda xagga siyaasadda iyo dhacdooyinkii dhibaatada badnaa ee soo maray arlada geeska Afrika gaar ahaan deegaanada Soomaalidu ay degto waxaad u barateen inaanu oday sii socda u yeedhno waxaad u barateen inaanu ilaahno nin hebel iyo nin hebel iyo nin hebel ayaan u yeedhnay dabcan way nagu yaryihiin dumarka Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay barnaamijkan oo fara ku tiris sababta ugu wacanina waxay ahayd iyagaaba fara ku tiris ahaa intoodii ama iskuul gashay ama ka qayb qaadatay noloshii siyaasadda ee taariikhdaasi ay lahayd waxa sharaf noo ah barnaamijka xusuus reeb ee Home Cable TV in maanta ay marti noogu tahay Adna Aadan Ismaaciil oo intiina badan ee af Soomaaliga taqaanaa aad wada maqasheen ama aad garanaysaan intiina garaad ka leeyahay Adna waxaad ku barateen taariikh caafimaad ku saabsan marka la soo qaado waxa kale oo ku barateen siyaasadda la fahanteedo oo aanay ka madhnayn adni waxay ka mid tahay hablihii Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed ee fara ku tiriska ahaa ee waayadii ugu dambeysay ee arlada Soomaalida gumaysigu haystay gaar ahaan dalkii British Somaliland Protectorate loo oran jiray wax la baray waxay ka mid ahayd hawlaha caafimaadka ama ay ahaydba haddana qaldaran iyada ay sixi doontee gabadhii ugu horeysay ee kulliyad caafimaad wax ku soo barata ee ka shaqeysa Hargeysa markii calanka la qaatay 1960kii intii ka dambeysay hawlaha caafimaadka ka shakow waxay noqotay marwadii ra'iisul wasaarihii dalkii la oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo ahayd markii ay isku biireen 1960kii British Somaliland iyo Italian Somaliland ama qoladii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ku meel gaar ahaan u sii hay jirtay ee Soomaaliya loo oran jiray adni jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa laanteeda caafimaadka ayay ka shaqeysay gobollo ayay madax ka noqotay markii burburka iyo baaba uu dhacay macallimadda way noqotay oo ardaydeedu aad bay u tiro badan tahay marka la eego xagga caafimaadka gaar ahaan Somaliland markii ay dib u la soo noqotay madax banaanideedii waxay ka mid noqotay dadka fara ku tiriska ah ee guntiga dhiisha iskaga dhigay waxay dhistay cusbitaal iyadoo qof kaliya ah cid kastaaba ka caawisay waxa ka mid ahaa dadkii goobjooga ahaa markii ay bilowday cusbitaalkaas oo imika aanu dhexdiisa kaga duwayno barnaamijkan xusuus reeb wasiirka amuraha dibadda ayay ka noqotay xukuumadihii soo maray dalkan Somaliland aad iyo aad ayaan inta kale iyadan ku noqon doonaa aadna kugu soo dhaweynaya barnaamijka xusuus reeb oo aan muddo dheer ku daba socday oo aan maalin walba ku lahaa barnaamijka noogu kaalay marka ugu horeysa in yaroo gaaban waxay igu aad uma badbadna in yaroo taariikha oo dhalinyarada aan ugu talagalay halkeed ku dhalatay sideed wax u baratay markaad yaray bismillahir rahmaanir rahiim horta aad baan ugu faraxsanahay yaan mar kale haddana aan ku siiyo warbixin iyadoo markii cisbitaalkan dhisayay geed hoostii adiga qaaday warbixin geedkii waa taariikhdii igu jiraayo wali geedka waa la ilaaliyaa waa la waraabiyaa waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland waxaan dhashay taariikhdu markay ahayd bisha September 8 1937 ما شاء الله سواد بدنا ما تقانو وقت دشين iyo waxa deertii heblaaye iyo gugi hebel iyo abaartii ba marka anu cistaan baan ku dhashay Allah yarxamo aab aadan dhaqtar صح oo in yar in ka sii xusuusan tahay ayaa ahaa dhaqtar marka cistaan baan ku dhashay صح hooya dib la kulantay markii aniga ay foolanaysay waxay noqotay marka taladu ilmuhu ha iska dhintee bal hooyada uun dib la badbaadiyaa
mise waa la soo jiidaa oo biraa lagu soo jiida marka halkaa dakhar baan ku leeyahay 2 dakhar baan leeyahay halkaa dakhar baan ku leeyahay halkaa kalena dakhar baan ku leeyahay waa birihii laygu soo jiiday marka caruuro badan oo anagu baanu ka dhalino oo dee nabar iyo yeesha idinka horreeyay ayaa anigu waa kaas taladu waxay ahayd in day laydaayo halkaa aan ku baktiyo iyo in lay soo jiido oo nabar yeesho dee nabarkii waa kaasi wax igama celin oo aniga intaasoo sannadood ku xiimaya ilaahayna igu badbaadiyey hargeysan ku dhashay cisbitaalka iminka la yidhahdo cisbitaalka tibida ayaa markaa jiray kan iminka group hospital waqtigaa ma jirno 250 baa la furay 450 ayaa la furay marka cisbitaalka iminka tibida loo dadka lagu daweeyo xanuunka feedhaha aabaha aadan dhakhtar baa loo jiray aabahay aadan dhakhtar buu ahaa lagu bixiyay markaa wuxuu ahaa dhakhtar buu ahaa wuxuu ahaa qofka ugu sareeya darajo ahaan oo Soomaaliyeed caafimaadka dadka ka shaqeeya wuxuu wax ku soo bartay cadan markii dambana England buu dhowr jeer tagay oo ku soo bartay qof aad iyo aad loo jeclaa qof isaguna ummadiisa aad u jeclaa buu ahaa wuxuu ahaa runtii macallinkii iigu horreeyay ee wax ibara naxariista wuxuu ahaa macallinkii ugu horreeyay ee aan qofkii aan wax ka barto ee aan isiri qofka tiigso qofkii ugu horreeyay buu ahaa marka waxaan cisbitaalka iyo caafimaadka iyo waan ku soo ag koray kolba halkii aaba ka shaqeynayay ayuu aanu ag joognay marka cisbitaalkaasaan ku dhashay waxbarashadaydu waxay ahayd waqtigaa iskuul hablaha wax lagu baro dalkii Somaliland muu lahayn marka waxaa jirtay habaryartay Allah yarxamo ayaa qof reer Djibouti u dhaxday oo halkaa macallimad ka ahayd iyada markaa la ii diray waxbarashadeedii ugu horreysay waxay dalka Djibouti oo aan kalgacayl weyn u hayo oo aan abaal weyn u hayo waayo indhala'aantii Djibouti baa indhaha iiga furtay iiga dilaacisay oo tacliinta ay bilowday marka Faransiiska wax ku bartay Faransiiska wax ku bartay Faransiiska ahaa afkii ugu horreeyay qalaadi aan wax ku barto markii dambana de Ingiriiskii ayaan de u soo wareegay fasaxyada kulli af Ingiriisi waa lagu hadli jiray guriga oo de hooyo aababa labaduba farta way yaqiineen oo luqada way yaqiineen laakiin wax barashadu rasmiga waxay ahayd Faransiis taariikh kooban waxaan ku helay abnaay 1953 waxa la furay iskuulkii ugu horreeyay ee hablo reer Somaliland protectorate waa run macallin ka ahaa maalmaha ka mid ah iyagoo taariikh ka sheekeynaya inay ku tilmaameen oo yiraahdeen qof kale oo Soomaaliyeed markii la noo waayay oo gabadha abnaa la noo keeno macallimada noo taariikhda ka sheekay taasi waa jirtay kuwa baahay kuwa macallinka anaa ku tixi doona horta waxa macallimad baa iiga horreysay iskuulka Allah yarxamo Aamina Macallin Qaasin ayaa dhowr bilood iga horreysay oo sheekh aabaheed ka ahaa macallin Dayaane macallimiinta Ingiriiska iyo xaasaskooda sheekh degana ay af Ingiriisiga yara bareen Aamina marka Allah yarxamo Aamina Macallin Qaasin baa iiga horreysay anna markaas halkan la iga keenay oo Hargeysa la iga kaxeeyay waxa markii dambana nagu soo biirtay Aamina jaamacad dhoole saddexda macallin baan u ahayn oo la shaqeynayay macallimiintii Ingiriisiga ahaa ee Miss Dark iyo Miss Clark iyo Miss McLaren iyo ayaa jiri jiray marka ardaydii marka aan wax bari jiray ma sha Allah waa kuwa maanta dalku ku faano kaba soo qaad marwada Somaliland Aamina Waris ardaydii ku jirtay baa ahayd ardayda meesha haddaan dib u raaco waxa way farabadnaayeen 22 bay ahaayeen Aamina aad ayaa xeen oo maanta California joogto oo professorada Shabees Xudun wad garanaysaan maka jaamac wad garanaysaan deeqa culujoog wad garanaysaan ruun may dhalaalis wad garanaysaan raaqiya xaaji ducaale cabdalle aasiya maqtal khalaf waxaad garanaysaan may aasiya maqtal khalaf markii dambe arday noo hayday iskuulka kuma jirin xaliim marka hablahaasi waxay ahaayeen hablihii ugu horreeyay ducfadii ugu horreysay inta badan waxay ahaayeen hablihii ama odayaashii saakin jirde xaliim axmediyey marka waxay ahaayeen hablihii ay dhaleen odayaashii ama macallimiinta Xuseen Fagfagaash saajin Mijo Xuseen la oran jiray Allah yarxamo
marka dadkii markaa joogay ama baayaca mushtar ahaa ama darajo ku lahaa hablahoodii bay ahaayeen 26 baa ayay ahaayeen maasha allah waxay noqdeen hablo lagu faano waxay noqdeen hablo meel wanaagsan ka gaadhay waxbarashada una horseeday inay ku dhiiri geliyaan reerihii kale inay hablaha u sii daayaan waxaa la oran jiray berigaa haddii inaan wax la baro armay ceebna soo jiida armay meel ka dhacda armay wax baran waxay barataan noqdaan wax waxyeelo u keena reerka iyo qoyska iyo marka waxay noqdeen kuwii albaabka u furay ee tusay inanta wax baratay inay wixii wanaagay reerkeeda kala timid ay ku sii kordhiso aqoontaas oo wax wanaagsan mooyaane ceeb aanay soo jiidin oo u malayn maayeen mid kaliya reerkii ay ka dhalatay ama qoyskii ay ka soo jeeday inay xumaan soo jeeday wax lagu faanimay waxaan iloobayaa aamino basbaas waxa Allah yarxamo way intoodii badnaa way dhinteen waxaan xusuusnahay ma sha Allah dhakhtar Yaasiin carab hooyadii canab iyo maryan laba walaal abay ahayn xaaji xasan aad bay u fara badnaayeen alxamdulillah caafimaadka goormaad u leexatay caafimaadka dib waan ku dhex dhashay oo day aad dhakhtar bay dhalay oo waan ku soo koray caafimaad iyo agagaarkii waxa fasaxyada markaan Djibouti ka imaado ayaa kolba meesha aaba joogo aan fasax tagi jiray markii horta Djibouti la diray dad badan baa horta hooyo iman jiray oo maalin waxaan maqli jiray iyadoo hooyo islaam ku leeyihiin naayna Yuusuf Dacaalay maanta dad hoogtay lama inantaadi baad iskuul u diraysaa naayna Yuusuf Dacaalay baaga iyo jabka iyo waxaasay ku oran jireen markaasna bal waxan waxbarashadu waxyeeladan ay hooyo uga digayaan tolo waa maxay laakiin maadaama ay hooyo aabo raalli ka ahaayeen anna waxbarashada aan jeclaa oo aan kullayba wax yar iska sii yar aqino baada iyo biyo tiyo sidii aan aqino waan yaabi jiray markaan fasaxyada ka imaado oo aan sanadka wax soo yara bartay waxaan wali raadin jiray bal wixii xumaaya lahaa way kugu dhacayaan tolo maxay noqon markii ugu horeysay aqoontii la ibaray ay wax tartay ceergaabay hayd abaarta maanta in haysa abaarteedii siigacse ayaa aaba jooga ceergaabo waxaa jiray dad badan oo tabaalaysan 230 oo dad oo tabaalaysan oo xoolihii ka dhamaadeen ayaa waxa lagu hayay kaaman baa lagu hayay lagu raashimi jiray markuu u baxo taraag oo kormeer ugu baxo kaamamka dadka uu ku hayo maxarumaha dadka lagu daweynayo ayuu igaga tagi jiray isbitaalka ceergaabo warqad oran jiray aabo inta aan maqnahay odayga caynkaasa odayga dawada in la siiyo hubi qofka caynkaasa tolmaha laga goro birito qofka caynkaas ee kaadidu hayso xusuus inay kaadida ka sii daayaan ilmaha yara caynkaasa adigu wuxuu iga tagi jiray list dhanbu iga tagi jiray markaan waxaan ahay 10 jir 12 jir meelahaas aan ahay sida dawada waxay tahay garan maayo sida tolmaha loo goro garan maayo sida kaadida loo sii daayo garan maayo laakiin se kii in charge ka ahaa ee meesha joogay ayaan u tagaa markaas odaygii aaba lahaa laga sii daayay kaadida ma ka sii daysay qofkii caynkaas ahaa tolmihii ma ka gurtay ayaan oran jiray markuu ka soo noqdo safarka ka soo noqdo waxay markii ugu horeysay arka aabahay inuu ciro leeyahay wada markuu gurigiisa ka soo toosi jiray isagoo xeertay buu soo bixi jiray markuu taraaga ka yimaado isagoo 2 iyo 3 maalmood maqnaa oo siiga leh oo soo daalay oo ciro leh ayuu isbitaalka horta ku soo horeyn jiray markaasuu hubin jiray bal maxaa jira iyo maxaa caynkan iyo maxaa caynkan markaasuu guriga tagi jiray meerin jiray xiiran jiray deys hagaajin jiray marka waxay i tustay darsi weyn bay aniga ahayd waxay ahayd darsigaas qiimaha qofka buka oo aabala lahaa bay tusay dadka buka ee uu ugu tagay meeshii ay joogeen baadiyaha ugu tagay ee markuu magaaladii gurigiisu ka dhisnaa uu ku soo noqdayna haddana iyagii buu ka horeeyay dantiisii buu ka hormariyay darsi weyn bay ahayd waxaan markaa ii noqotay waxaan ku dayasho aan tiigsada ii noqotay markaa horta markaasay iigu horeysay
sanad badan sanad ka dambeeyay waan ka sii weynaa kasii weynaanayso marka wax ka sii badan oo maqaskan ay qabo iyo bandheyskan ay duub iyo waxaan ay hagaajiyay marka ay ahayd laakiin horta markii ugu horeysay halkaas ay ahayd waxaan noqotay waxaan aad iyo aad u jeclaystay oo walo aabo anigoo de xoogahoo shaqeynaya uu in yaray arkay oo dhowr jeer uu de England igu yimid 3 jeer iyo safar igu yimid England oo de mar kormeer iyo igu yimid iyo fasaxiye iyo hawlo kale mar BBC da u yeedhi jirtay cisbitaalkan uu iman jiro de kormeer iyo warbixintayda iyo waxbuu de soo urursan jiray markaan ka soo noqday dalkeena marka barashadaada waxaad ku qaadatay Ingiriiska Soomaaliya dalka Ingiriiska ku qaatay magaalada London baan ku qaatay caafimaad horta markii hore horta waan yaraa inaan horta waan soo koraa waan af Ingiriisiga hagaajiyaa ila Faransiis wax ku soo baranayay markii aan soo dhacsaday oo levelskii aan soo dhacsaday ila Faransiis baan ku soo qaatay 2 sanadood ayaan markaa jaamacad la yiraahdo University of South Bank iminka la yiraahdo oo ahayd the Barrow Polytechnic ayaa beriga la oran jiray kaasaan ku jiray kaasaan ka soo qaatay pre-nursing course wax la yiraahdo waxay lahayn jireen courses la pre-medical pre-dental pre-nursing markaan pre-nursing ayaan qaatay buddigii hore ee intaan la baran si hormaray si aqoontayduna ay u soo korodho basic sciences kii la iga rabay aan soo kobciyo markaasaan dabeetana aan bilaabay nursingii 3 sanadood baan markaa nursingina iyagana aan ku jiray 2 sanadood ee college-ka ka dambeysay markaa qalliinkan aad u jeclaa صح marka hospital baad la shaqeyn jirtay Soomaa hospital baad ardayad baan ahaa waxaan kamid ahaa kuwaas Allah ya rajayay kama aqaanay qaarna sharkeeri madawliin qaarna kale casay waxaan ahayn arday baan ahayn tababar ku jirta 3 sanadood la tababarayo aan xirfadda kalkaaliyaha waxaan lahayn imtixaamadii waxaan lahayn shuruudihii lagu gudbayay waxaan lahayn markii dambe darajadeed baan lahayn waxaan lahayn markii dambe imtixaanka qaranka ee Soomaaliya ee Ingiriiska way cisbitaalku markuu ka soo saaro imtixaamadii tababarkii waxaad hadana u fadhiisanaysaa imtixaankii Ingiriiska marka license-kaygu number buu leeyahay oo waxaan ka diiwaan gashanahay Ingiriiskan ka diiwaan gashanahay marka bilad baan la siin jiray numberka xagga dambe kaga qoran yahay oo hadii shaki ku yimaado la hubinayo inaad tahay heblayo shahaadadii iyo diplomayaashii wixii loo hadlay meesha ka qalin jabisay inaad waa license-kii weeyaan haddii aad wax khalado ama aad wax samayso ama aad dambi gasho ama aad wax ka baxsan wixii lagu baray tahay registerka laga saaraa oo darajada laga qaadaa sida askarta alfaanka looga rufi jiray ayaa sharciga Ingiriiska iyo adduunka uu yahay haday dhaqaatiir yihiin iyo haday yihiin kalkaaliyaalba waxa lagu faray inaad heerka umada ugu shaqeyso oo sidaa ugu shaqeyso oo waxyeelo u geysan laakiin haddii la arko inaad waxyeelo geysanayso waa laga saaraa registerka oo cidii aad shaqo u doonato waxay kale horta bal ka soo qaado warqadii inaad wali diiwaanka ku jirto oo laga saaran iyo in kale marka halkaas wax ku bartay qalliinkan aad u jeclaa takhasuskaygu waxaan doonayay inuu markaa ka ahaado kelmad uu aaba maalin yiri ayaa xaggan dhalmada iyo umulisada ii wareejisay wuxuu yiraahdaa qalliinku wanaagsan yahay waa ruudeed waxaan ku helay abaalgudyo iyo baan ku qaatay bilada iyo baan ku qaatay tacliinta aad baan u jeclaa tacliinta waxaan u hayay hamad weyn baan u hayay oo ilaa iminka aan u hayaa oo aan jeclahay inaan ku beero ardaydeeda waayo haddaad arday tahay oo uundiid tahay waxba baratid haddii tacliintu wax dirqi kugu tahay oo intuu aabahaa ku keenay meel ku qoray oo ku yiri waxa baro weligaa keeni maysid laakiin haddii waxaan ka soo go'an oo uu kalgacayl u hayso waxbarashadu way ku fudaataa way ku macaanaataa waana sii durkisaa oo markaad meel gaadhaba wax kale ku sii tilmaantaa kelmadu yiri aabo way fiican tahay markaad timaado aad soo noqoto ee dumarku ku baahdaan qaar dhanayo oo dhibaataysan baad la kulmay maxaad u qaban su'aashaas waxay aniga aan u fasiray aba dhalmada baro ay ahayd markaasaan isqoray aan bal way mar hadii intaas oo sanadood aaba ku soo barbaarinayay ee intaas oo fursadood iyo intaas oo maxaan ku wax kula qabanayay
waxa uu farta kuugu fiiqay qiimay leeyihiin annagoon markaa waxa fikradan ka haystaa dee courses dee waanu qaadanaayo dee waa qasab oo way ku jiraan laakiin se caruurahan iyo wiiqwiiqdoodan iyo dumarka foolanaya iyo dheecaamadan iyo mandheerahan iyo waxyaabahaas runtii markaa waan ka yara niyadeydu way ka jeesatay markaas ayad bal waaya haddaba intaa u adkayso ilaa intaa in ka badan buu aabo kula qabtay waan isqoray ilmihii ugu horeeyey ee dhalanayay markaan arkay ayaa horta qalbigayga u furmay oo naxariis aanan isku ogeyn oo hooyadaas 9 bilood soo uurka lahayd ee soo wallacday ee soo cuslaatay ee caguhu soo barareen ee intaa soo dhibaato iyo caruurtii iyo reerkii iyo ilmahan ku dhex beeranaya ku sii koraya ee maalinta dambe sii cuslaanaya waxa ay soo martay iyo foosha iyo nabarka iyo culayska iyo dildilaaca iyo dhiigga iyo waxan kalgacayl dheeraada ayay galay halkay ahayd meeshaas waxay ahayd cisbitaalka la yiraahdo Hammersmith Hospital oo London ku yahay cisbitaalka ugu weynaa jaamacadda London University ay weeyaan kalgacaylkii maalinta qalbigayga galay umulaha wali wuu igu jiraa maanta halkii baan markaa ka leexday allinkii oo umulaha takhasuskaygii kii dambana aan ku daray ودي أنا هالكاس من كسي ودي مركها تعلينت الكاسة هاي أنت أنا صار نقول هذا تخصصية بدل لو كلام سمي ودي عافمات كحنوضة فرح هو سو سمي وعستل يرادو إن كلي هول هوسبيتال وهاتفشير يلا إيجلان إن عستل كلو سن ماكس هوسبيتال يرادو لأنه كيالا وكنت تخصصه حنوضة كانسر كا كان يسكن تخصص كاوان كسو سميي لويشام هوسبيتال او ساوث ايست لندن wuxuu ahaa takhasuskii labaad ee aan ku soo sameeyay dhalmada iyo uurka markii dambana waxaan soo sameeyay maamul iyo maareynta waxaan ku soo sameeyay West Middlesex Hospital marka London iyo agagaarkeedii hareerayay dhinac walba u jabis ayuu dhinac walba u jabiyay oo baaskiilad ku wati fariid marka dhalmada lagu barayo waxa kamid ah qasab 3 bilood waxaad ka shaqeynaysaa meel aad dumarka guriga ku dhalaya aad kaga dhalin karto waa inaad ilaa sodoneeyo dumara guri kaga dhalisaa waayo mid baan cistaal gaadhayn mid baan meel cistaal jiraba aan ahayn 3 bilood tababarkii beriga aan qaatay iyo wixii ay itustay wixii cilmiga aan ka bartay maanta waa kan aan ku raadinayo kun umuliso oo Soomaaliland daboola inay haday cisbitaal tahay iyo haday guri tahay iyo haday tuulo tahay iyo haday tahay xarun kale oo caafimaad inay ugu shaqeeya waayo umulaheenu umul raaci uu ku badan yahay dhibaatada ilmaha yar ay dhalaan ee uu ka saqiiraya lagu badan yahay intooda badan dalabna kuma dhaco masna ma qaniinine waxay farsamo daro ay horma soo noqotay waxaan soo noqday 61kii bishii August 61keedii baan soo noqday ma la oran karaa gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed ee ama reer Soomaaliland ahaydeen sida uu ii sheegay Dr. Ali ana dhakhtarkii ugu horeeyay baan adina waxay markaas waa maxaa waayihii ka jiray xagga umulisanimada iyo dhakhtarkan marka waxa jiray cusbitaalkan group hospital markaa jiray ee Somaliland baa jiray dhakhtarka kaliya buu ahaa intaas oo waadhan ka jajabka qalliinadaadii iyo waayihii lagu sugnaa iyo xaaladii markaa caafimaadka dalka jiray ka sheekay dal Ingiriiska markaa tagay wuxuu ka haystay dhaqaatiirtiisii wuxuu ka haystay umulisooyinkiisii wuxuu ka haystay sisteradihiisii oo intaas ku joogay guutooyin baa joogay waa ku 6 bilood dabadeed ay ka baxay wadanka markii aynu calanka qaadanay Somaliland ay qaadatay calankeedii 6 bilood bay sii joogeen markaas ay ka baxeen cali baa halka dhex taagnaa ka qalaya ka jabay kabaya ka xumada la daweynaya ka xanuunada kale eegaya ka ilmaha yar odayga habarta aan kala eegayn intaba isagu ma u dhakhtar ahaa aniguna markaan imid
isagoo runtii dee kifaax ku jira ayuu haddaba qaybta dumarka iga hay qaybta dumarkan ka hayay maanta cisbitaalka guud ee Hargeysa ee uu cali keligii alla waaxid keligii hayay dhowr iyo 30 dhakhtar baa jooga sidii cali qaadi haaka loo oran jiray ayaan jeclaan lahaa in iyagana haaka loo yiraahdo ayaan jeclaan lahaa qaybta umulaha qaliin iyo waxay noqoto iyo outpatient kii ugu horeeyay dumarka uurka leh halkaasaan ka furay arday baa markaana loo keen ayaa iyaguna yimid oo hablihii burcada wax ku bari jiray ayaa qaar laga soo ayaa xabado halkaa joogeen Aamina Waris baa kamid ahayd waxa Xaliimo Axmedey baa kamid ahayd Aasiya Makhtal Khalaftaan markii hore magaceeda sheegay baa kamid ahayd ina maxaan ku yiraahdaa ina Cabdiqaadir ayaa joogtay Kinsi Cabdiqaadir waxa joogtay Ruun Axmed shantaa hablood baa joogay kirishbooyay noo ahaayeen waxay sugayeen waxaanu eegaynay bal hadda hanaankooda iyo inay u qalmaan in la siiyo aqoon waxbarasho way soo dhacsadeen warqadihii lagu diray ee iglan loogu diray ee tababarka ku doonteen ani caliya baa saxiixnay shantii baa dhoofay oo soo noqday shantaas markay tagtayna shan kale loo yimid oo ina Cabdiraxiim Caabi Faarax iyo ina maxaan ku yiraahdaa Yaasiin Carab hooyadii iyo habaryartii iyo kooxda labaad ayaa markii dambe iyaduna meeshii soo bedeshay dabadna nursing school loo noqotay idinka laftii waxaanu bilownay waxa joogay Guray Xasan Allah yarxamo iyo baa joogay iyo Allah yarxamadiisa magaciisa waa loobeeynankii boorme labaasaa joogay millimeter ahaan buu ku shaqeyn jiray oo cisaalkii shaqaalaha iyo kormeerka iyo nadaafada iyo waxaas uu kormeeri jiray anuguna cisbitaalka iyo baan hayay Axmed Gurayna wuxuu bilaabay hadda tababarkii markaa waanu xiisadaan tagi jiray waxa markaas joogay dadkii Ingiriiska wax baray dadkii Ingiriiska wax baray oo nurses waaweyn ahaayo nurses iyo nurses iyo midwives iyo baa de wad garanaysaan cadar kulco ee bari dhaweyta dhimatay cadar kulco waxaa joogtay Zainab Xabashiyo waxaa joogtay ma sha Allah Khadija Bariig Khadija Xaji Ismaaciil waxaa joogtay maxaan ku magaceedu way soo noqon doonay Khadija Ruun Xuseen oo umulso weyn ahayd oo aanu jeclaa Khadija oo reer Burca ahayd Shahmad ayaan magaceedu doonayaa marka dad dumarkaas oo darajo wanaagsan gaadhay oo Ingiriisku soo tababaray ayaa markaa joogay waxay markaa noqotay inaanu jiil cusub idinkuna keentaan oo laakiin iskuul soo maray in markaa iyagana la tababaro wiil iyo gabadhba waxaa kamid ahaa inamadii markaa oo iyaguna markii dambe iyaguna England ka soo noqday intii xagga aanu ku maqnayn rag la soo diray Xuseen Samatariya baa England loogu yimid macalinka ka noqday markii dambe iskuulka ka noqday intii aan England joognay buu ku maraa wuxuu soo noqday 2 sano 3 sano markaan meesha joognay buu soo noqday waxaa soo noqday isaguna way soo noqon doonaan magacyadoodii waqti hore ahaydee ayaa iyaguna soo noqday nimankaas iyaguna England xagga ka soo noqdo iyaguna taageero noqday iskuulkii lagu soo biiray waxa markii ugu horeysay soo noqotay taawanka ka sheekaynaya dhibaatadii ugu weyneed ku aragtay isbitaalada dhibaatadii ugu weyneed ee ifkay soo maray oo la yaabka ugu weynaa ayaa horta aniga soo maray bisha 8deedii baan ayaan soo degay 9keedii waan shaqo tagay oo intaa anagoo ku soo noqday aaba waa lagu baahiyay soo noqo aaba goormad imanaysaa aaba halkii oo dadkii waa ku sugaya aaba cisbitaalkii waa cidla ayaan ku soo noqday aaba markaa burcu joogayo burcu ka shaqeeyayo cisbitaalka TV-da burco ayuu hayaa laakiin sidii markaan wadee airport-kiga soo qaado hooyiyaba halkan joogay aroortii waan shaqo tagay waxaan tagay meeshii la oranayay Director of Medical Services daarta yaree jingada ah ee halkaa taa weli aan la dubin ayaan tagay waxaan waa daway kan idinkii yeeray dawayninkii wax soo baray maxaan qabtaa dawladda cisbitaalka tag hay cisbitaalka
maxaad doonaysa inaan ka qabto inaan qabto dee wixii lagu baray oo dhan ka soo shaqee marka anigu waxaan doonayaa in la yidhaahdo titleka magac darajadaada waa taa mushaharkaaga waa kaa saacadaad shaqaynaysa waa kuwa waxaa ku kormeeraya qofka ama dadka waxaad kormeeraysaa intaa waxaad mas-uul ka tahay qaybtaa dareyska aad gashaana laga fara waa caynka de waxaan doonaya wixii ingiriisku marka cisbitaal aanu ka tagno mid kale aanu u wareegno shuruucdii cisbitaalkaas cusub ayaa dana loo akhriyi jiray loo laqimi jiray waanu ku shaqayn jirnay dareyskiisaanu ku shaqayn jirnay oo maxaan ku shaqeeyaa dee waxaad doonto ku shaqeeya dareys waxaad doonto gasho waxaan doono ma gashanaya dareys anagaa soo tushay waan shaqo tegey bishii baa dhammaatay dadkii baa loo yeedho mushaharooyinkii baa loo xaadiro waa la qaadqaatay xafiiskii baa waxay anigu miyaan wax mushaahara miyaan leeyahay liis baa leega waxay may kuma jirtid waan iska shaqeeyey 22 bilood ayaa mushaahar la-aan ku shaqeynaya oo mushaharkayga maxaa hor joogay xamar baa laga hor joogay wasaaradda caafimaadkaa hor joogtay baarlamaankaa laga dooday oday la odhan jiray kutub xoor inuu dhintay baan u malaynayaa ee laa yarxamo ayaa wasiira wuxuu ku mahmay maxaa markaa darajadeedu waa C53 baa la odhan jiray waxa weeyaan waa 1,050 shilin ayay markaa mushaharkayga ahaa waa ta guri iyo la siiyo oo aan ka darajo sareeyo ayuu dad takhasusyo badan baan leeyahay iyagu basic nursing bay lahaayeen tii inamadaa la siinayay ee aniga darajadeeda ka hooseysay ayaa haddana la yidhi way ku badan tahay inan de ma inan baa 1,000 shilin la siinaya oo maxaa loo sii weydan way soo dhacsatee oo aadan dhakhtar muxuu inantiisa mushaahar ugu raadinayna waa maalqabeen wax buu leeyahay muu inantiisa biishado te imkaba way biiliyaa gurigiisii baan joogaa laakiinse shaqada aan leeyahay darajay leedahay oo maskab bay leedahay oo cid baan ka sarreeya oo cid baa iga sarreyso mas-uuliyaddaasay leedahay waxa la isku dayay inaan xanaaqo oon iska tago markaa dee 22 bilood 22 bilood baa mushaahar ku shaqeynaya oonana diiday inaan meeshii oo mushaharkaaguna ku xidhnaa baarlamaankii xamar ku xidhnaa markaan tagi waayey ee aan soo lignaaday way haddaan maalintaa ka tago albaabkaasu dumar uma furnaadeen waxaa i hor joogay may hayn darajo may hayn aqoon may hayn dadaal sidaan u shaqayn jiray 3 sannadood een Hargeysa ka shaqaynayay abadkay uma shaqayn habeenii maalin habeenkana la yeedhaa markay isku dhalaalaan mujaahidad dumar u soo dagaaltay mujaahidad ku dhashay habeenkana la yeedhaa maalintana la yeedhaa kala baydhana la diraa marka wax ka dhacaan berbera la diraa salaxley baa la diraa mushaharna ma qaato markaasaa cali nafti yarayd ka bixi gaadhi markaasaa hindina loo keena adugu yaan halkuuda waan tegi waayey markaan tegi waayey baa la yidhi dabal haddaba mushahar dee tii iska sii haddaba tii iga hooseysay waa darajadii iga hooseysay hal laga qoro intiiba aabana laa yarxamo dhinta oo reerkii igu soo muruxsaday oo biilkoodii igu soo muruxsaday oo xaaskii labaad ee aabee burco joogay biilkeedii igu soo buruxsaday oo kiiraan walaalahayn boarding school ku jiraa sheekh tayari primary ku jirtaa 2 xaas iyo caruur iyo wixii bay igu soo buruxsanaa waan iska aqbalay laakiin de inaan rag waa xariif markay noqoto inuu xaawalay wax ka maroorsado kelmaddan waan ku adkaynayaa marka inaan rag rabo inuu xaawalay wax ka maroorsado waa ku xariif waxay sameeyeen taariikhdii aan shaqada bilaabay la igama bilaabin shaqada taariikhdii la saxeexay 1 January 1963 ayaa la iga bilaabay mushaharkii intii kale dabayl duufaan baa qaaday laakiinse markaan soo dhacsaday horta darajadii soo dhacsaday ayaa wanta kale waxa doontaan hadaba meesha doontaan la tagan laakiinse horta darajadii waa taas weli markaa qarankan waad ku leedahay 22 bilood in ka badan qaran ku leeyahay qaranku intii hore sheegay waan ku leeyahay inta in ka badan baan ku leeyahay waan ogahay inta aynu ku joojino inta maanta aynu ku qaybtan maanta aynu ku joojino waxay noo maraysaa shaqadii aan bilaabay 1961 inqilaab baa jiray soo noqday waxaan ugu horeynaynaa ee ka bilaabaynaa
inqilaabkii gadoodkii dhacay Gadoodkii. isku darkii waxaad ka hayseed ka maqashay ama isku darkii sir hore oo uu sheegay allah yarxame maxamed cabdilla walawal 6 waraysi aan ka qaaday oo uu sheegay inay aad wax badan ka og tahay sheekada inqilaabka koobiye lixdii ka dhacay oo ay daweysay ninkii inqilaabka madaxda ka ahaa oo xabad lagu soo dhuftay iyo mid kale oo dhintay allah yarxamo iyo nin kale oo iyo meydkii cabdillaahi سعيد عابي iyo inaan askari oo dhaawaca iyo xasan keed oo iyo dhaawaca intaaba doorka dabahayno insha Allah barnaamijkii xusuus reeb qaybtan aanu ka duubnay adna aadan ismaaciil waa adna aadan dhakhtar oo aanu baahnayn inaan idiin sheego ciday tahay iyo meeshay ka timid iyo say tahay qaybtan si wanaagsan uga sheekaysay inta hore halkaa hanoo taagnaatay qaybta labaad waxaanu ka bilaabi doonaa 1961 inqilaabkii ka dhacay Somaliland arladan imika la yiraahdo waagaana la oran jiray Somaliland Protectorate hase yeeshee jamhuuriyadda Soomaaliyeed loo bixiyay markii 1960kii ay isku biireen labadii qaybood ee Talyaaniga iyo Ingiriisku kala haysan jiray ee deegaanada arlada Soomaaliyeed aad iyo aad badan u mahadsantahay halka ay noo tahay adiga badan